dadaalka ugu jirtaan inaad dadka walaalihiina oo ku dhibaatoobay qaraxii arxandarrada ahaa oo qalabka ka dhacay waxaa ku kala duwantihiin idinkii shabaabku iyaguna waxbay dumiyaan idinkuna waxbaa dhistaan idinku dadkiina aad u naxariisataan iyagu dadkooday baabi'iyaan idinku soomaalinimada iyo qarannimada dhistaan iyagu waxay rabaan inay qof Soomaali oo dambe uusan noolaan iyagu waxay ka shaqeeyaan inay asalka ummadda Soomaaliyeed cirib tiraan idinkuna waxaad ka shaqaysaan qarannimo baaba'day inaad soo nooleysaan qaraxii shalay halkan ka dhacay waxaa loogu talagalay in lagu dhibaateeyo ummad Soomaaliyeed oo shacab ah meeshii ugu shacabka badneed ayay la eegteen macnaheedu waxay tahay sidaan hore u sheegay waxay soo direen fariintii ugu dambaysay shabaab oo aan rabo qof walba Soomaaliyeed inay ogaato fariinta ay soo direen waxay tahay ma rabaan qof dambe oo Soomaaliyeed inay noolaato ciddi ka difaaci lahayd waa idinka waxaan rabnaa meeshan maanta waxaan imid iyadoo aan waxba looga jeedin ilaahay ka sokooyey idinka ma hadda waxay noqotay jid la mari karo sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo ciddaadtiinay wax ka sheegaysaa qashinku marka la qaado meesha la hagaajiyana kuwii dembigaan geystay ciddii ka daba tegi lahayd oo falkaas ka jaasay lahayd waa idinka ciddii dalka ka xorayn lahayd waa idinka haddii aad aragteen in boqolaal Soomaaliyeed oo hooyooyin iyo aabbooyina lagu laaya meesha inaanay mar dambe u dhicin mar dambe inaan la layn yaa laga rabaa inay hor istaagaan diyaar muu tihiin inaad sidaas yeeshaan nolol maxay nagu taraysaa in dadkeena sidaan loo leynayo waa muhiim inaan maantay noogu dhowda dowladdiinna iyo idinku inaad gacmaha isqabsataan shacabkiinna waa idin jecel yihiin taariikhda mar baa la qoraa diyaar ma u tihiin taariikhdii shabaabka looga xoreyn lahay dhulka Soomaaliyeed inaad qortaan dalka idinka ayuu idinku jiifaa madaxda la sheegaayo waa idinka qarannimada la sheegaayo waa idinka rajada la sheegaayo waa idinka waa mahadsantihiin haddii ilaa yidhahda beritaan idinku soo noqon doona haddana